waxay yiraahdaan marxalada gaalada qaar badan oo wax ka qoray iyagu markay fahmi waayeen xidhaa waa marxalatul junuun marxaladu ilmuhu waasho weeyaan bay kuwada wax ka qoraa marxaladu qofku waasho oo u baahan yahay wax kale iyo miir kale in loo raadiyo marka aqli ahaan uu isu bedelaa ilmuhu jir ahaan uu isu bedelaa taa ku dheeraan meynee waa marxalad marka la soo ururiyo bay yiraahdeen ilmuhu u baahan yahay i'tiraaf Soomaad maqaldad badan baa اعترافتون كو بدن ilmahana اعترافتونaho inantiina waxay leedahay hooy la qabso aniga qudhayda gabadh weyne wiilkiina wuxuu leeyahay odaygii la qabso qudhigaygu nin weyn baa haatan marka waa inaan loogu soo hagaagin baa ilmihii yaraa la diri jiray la canaanan jiray la huruufi jiray aamus loo oran jiray اعتراafto waa in xoogaa اعتراaf la sameeyo sida loo اعترافayaa marka sharax ka bixiyeen tobaneeyo qodob hadii aan maraajicda intaan ka soo qoray qaar ka mid ah ka soo qaato marxaladaas waxay ka bilaabmaysaa bay yiraahdeen wasay iyagu yiraahdeen teen age macnaha 18 ilaa 19 waa waqtigaas erayga la raaciyo ama 3 toddobaadba toddobada hore marka laga yimaado toddobada dhexe iyo toddobada dambe ilaa 14 ilaa 22 waxay ka waramayaan waa waxda ummadaha shisheeye iyo culimada muslimiinta wax ka qoray baa isku waafaqsan yihiin ilmaha waa in marxalada lagu baraarujiyaa marxaladu marayo oo tidhaahda marxaladan aad maraysaa waa marxaladii kugu qiimaha badnay cimrigaaga aad wax badan u kororsan lahay idan i'daadka wa ajmalu awqaat waqtigaaga kugu qiimaha badnaa way hebelow ama heblaayo istiyaari marxalada wuxuu ilmuhu u baahan yahay mar haddii jirkiisa isbedelayo in aqeedadiisa iyo cibaadadiisa la dhiso hadii ilmaha aqeedada la cabsiyo miir baa u samaysmayo mid adab laho wax aaminsan oo de kula jihaadayo ku barbar taagan buu noqonayaa ka nasato daba aqeedahan u qanciso waqtiyada afkaartooda caruurta laga faa'iideysto way cidii doonaysa inay duufsato ama dhan kale ay u kaxayso waa waqtiga ay u nugul yihiin inay isbedelaan marka aqeedada iyo cibaadadaba in aad loogu dadaalo u baahan yahay waalidku hadduu wax karanay hadii kalena culimada ha u geeyo waqtiga isaga wuxuu u baahan yahay baydaan inaad ihtimaam iyo taqdiir siiso lima yaquluhu inta tahaduthi macak waxa uu hadiya jeer sheegayo inaanad iska dhaga marin ee balaad dhageysato ilaa waa kan ku i'tiraaf baan kaaga baahanahay nin weyn oo la dhageysan waayna waa cajabo ku jeer ciyaalka markay wax ku sheegaan waxa oran jirtay aab orod iska soco laakiin kan la dhageysto u baahan yahay wuxuu u baahan yahay baydaan madharkiisa in la eego madharka waqtiga isbedelka xagga dharka habku la bisanayo waxa qofkeena waa waxyaabo aad u daneeyo marka inaad kana war hayso isla markaana aad xoogaa xorriyad